السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا نغو حيران مروليبا waxaad naga fiirsan jirteen ama aniisoo gudbin jirnay dad aad u weyn oo Soomaaliyeed ama dhibaato kasta ha haysatee isla markaas ayaan aniisoo gudbin jirnay. Maanta waxaan la joogaa walaalkay sidaad aragtaan Cabdixakiin Salaad Bucul oo isla markaasi ah walaal xanuunsan oo isla markaasi arrimo badan ee xanuunkiisa u siyaadiyeen. Cabdixakiin waa wiil Soomaaliyeed kana shaqeynaya magaalada caasimadda Muqdisho isla markaasina xanuun uu la soo kordhay oo isla markaasi xanuunka waliba kala yahay noociisa adag ee loo yaqaan kansarka. Cabdixakiin wuxuu noo sheegay inuu kansarka yahay 3 qayb isla markaasina qayb sare iyo qayb dhexe iyo qayb waliba hoose, balse haatan wuxuu noo sheegay in qaybta dhexe oo ku taala feeraha iyo dhinaca sanbabada inay tahay qaybta asaga haysa. isla markaas Cabdixakiin dad ayaa ku la tacaalayay ka soo bilow sanadii 2020 bishii September markii lagu sheegay, kadib waxaa loola soo cararay dalka Kenya isla 2000 bishii 11 November 20 ayaa lala soo cararay. waxaa la keenay isbitaalada Kenya muddo ayuu ku jiray, aad ayuu xanuunsanaa isla markaasina isbitaalada Kenya ayaa lacag badan ku soo dalaceen, dad ayaa intii qarash hayeen iyo hanti hayeen ku bixiyay isla markaas haatanna dad kale ayaa intaas wali kor taagan. xaaladiisu way sii adkaatay, haatan aan la hadlayo lacag badan oo fara badan ayaa lagu leeyahay. balse Cabdixakiin ayaan su'aalo weydiinaynaa insha Allah oo hadli karaa idinkana bal nala arka. أوكي السلام عبد الحكيم. أهلا وسهلا. عبد الحكيم بالحالة أتكسو كنت يحلق يسوى باللابت. الحمد لله ولا مع أرتا بيش سجلات سجكتي. أنا جوا عاصمة المقدسة. ومثلا وزارة البرشة. وزارة البرشة. كونتراكت بوقت من هاي سوزو بالغرعي. بوقت إنتان قرني مركي سكوب يسكت كلاسو بالله وسيلي بس كيلا دمي. بوقتي مقرر كلا قري أو متغانا تابرك قدام يسمع معلمين تديه لها بوقتها. أنا ببهين أيام يوصل بالأورجان. صح. كديب مركي أدركي تابرك ما لما الحمد لله. كديب بصوب هاي وحنا ما ذي نيروبي. باريتان أصب يو متغانا باثولوجي أو ريبورت لودري أو كي أنت لقيني مارتين دسكوبي لصوب هي عد لقاضي لقي الدري هذه تدو عشان سويني نتيجة مركز بعده حالي مركز عذر كانسر كدون تكودا سكوماس وليه معناها حالي هذا سكوماس سيل كارسينوما سكوماس سيل كارسينوما دون تاني تنقولي هرت تغاتير تحقيق بين 6 كانسر كمان واحد 6 لغة بيه ودون تا أي 6 حقيقة أي ودقان 6 حقيقة ودقان أي أبو حيدهان upper third middle third lower third صح. marka dhuunta kore qaybta kore qaybta dhexe iyo qaybta hoose marka badan meeshan dhexe ay ku taala baashan waa tumor waxa la yiraahdo Ingiriiska ama buro sawtaan si fiican wada meesha soo baxaysa iyada koraysa kansarka marka meeshan dhexe ku taala kadib wax la yiraahdo radiation therapy ayaan bilaabay marka lacag badan macnaha in lagu gubo oo dab koronto lagu gubo كنتي لو جواي مركز سيشن شيشن كقاعدين 5 مالمود أسبوع سبدي حد مركز لقريب هذا كان سبدي حد لما شغال سفه 5 مالمود أيام صباح البتة جاي نيروبي ترانسبورت جاري كقاعدين إلا ما تجي وحمر حي كريت صح وحنا نقوم قال مركز أتشكل معلنكي إنه $100 وياه ها قوتانك سافيسك ومعناها أو قوتانك سبتالك بيلكيسي ترانسبورت جاري وحي مركز لسكو دفتو حتى يكبر ناس مر لكن لحداس كن لحداس $100 العالم هو يسعى ما أنت كويس كدب صدق عش كدب مركز راديشن كودا ماضي 3 سيشنز صدق كودا ماضي هذا إذا صعدت لما علينا الله تنمر يا وحلسكو ذا لري راديشن كر وقوتانك صح إيوه كيموثيرابي على الإيراد صح وأصلا سيستميك جيرك لنا دواء لو شبه أنت ما تغنى لو حربية لو قدر دواء داس لو سيحنا كاس مركو inpatient بتكراديشن ك مسيحنين أو بيلكي مركو جيفكي وكامغنا صح تن لكن أفر ما هديت شال ما هديت زد ما هديت زد وقعد وايد إثبت الوسيحية
وإن التقاتير كل جوان هبينكي ناس كيو إن العكس هذا يكون قرنته جيف كيو إن يكون قرنه مرك العكس هو بدنتي ما بدني ساعة مرك قلتان كيمتر بيجي عن لب اللعبي مرك وريسي أفر هبينا نكوجري كوبتيك هوسبيتال ده كوبتيك أي أفر هبين اللي سهي استالك تقاتر كي يعني أونكولوجيسك أو أن كل ممر البوح جوان هروستون صح mid kale asaga la shaqeeyay oo markii staalka joogo coptic ayaa habeenkii markii daawooyinka ugu xiray sababta liisii coptic taas waana ka raqiisan yahay Nairobi hospital sanad anaga Nairobi hospital copticgaas isbitaaladaas oo dhan qarash fara badan ay kugu yeesheen oo waliba waraaqahoodii iyo wax walba lahaay lacagahaas xataa badi kulliba waxaa ka hadli doono walaal keena Muuse ka hadli doono marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wasaaradii aad u shaqeynaysay ee Soomaaliya ee wasaaradii waxbarashada inuu xanuunkan ku soo gaaray marka ay maqleen wax xiriir ama kula soo sameeyeen ama tacaala dabcan ha raga ogaay صح rag wasaaradda soo shaqeeyno oo qeyr la si waxa kamid ah professor Hussein Farah Tuhu صح oo aan isla qorin buugta صح sidaad arkaysaan walaalkeen waad dareemi kartaan xanuunka ay leedahay adoo noloshaada wax bartay oo waliba dadkaaga inaa wax tartid rabtid oo waliba waxaan caadi ahayn manhaj umadeed ama waxbarasho umad lagu badbaadinayo ku dadaalayo misna markaad garab weysid ku garab istaaga qeyrada ay leedahay xanuunka ay leedahay laskuma fiirsado xanuunka dhaqaale darrida iyo baahidaba balse walaalkeen waa aragtaan maanta isbitaal ma joogo oo guri ayuu ku soo arooray cid isbitaal ka bixisa ma leh lacag fara badan waa lagu leeyahay dhaqaale aad u fara badan ayaa soo kordhay ma dareemi kartaan xanuunku dareemayo walaal waa san ku sheegay qeyr la si Hussein Farah Tuhu professorka asaga waxaan in panelkan isku jirnay oo aniga asaga isku department aan isla qoraynay buugta oo qaybta Ingiriiska marka ilaa qeyrasiya asaga marka wasaaradda kale ma aadine xalimintii ama xaqorinii intuu dhaxwar waniyo habeenkii coptic lacag lagu haystay intuu dhaxwar waniyo ninkii saas waay soo qeylinay adiga lacag $1 in heed amarna oo isoo dari qeyrasiya waana wax badan iga caawisay حسن أسألنا واجرة أقاسمي هوري وزارة هنجري حسن تاتا بروفيسور حسن تاتا حسن تاتا أنا وازنا متغنى يتنروي ما دي استالك ترى ما دي نروي استال واي أنا مش كبلمي لكن وحنا أنت جوا وتي صباحي وأسألك وين صبح ديار وقرنا وابعي اللي وجهي أساس أيوة هاي لكن وزارة أهان ووزارة قرنك أو أيوة رئيس ماله يعني هبزير يوحسي لكن رجعن من هشك أو ويني هاي قسمها هذا من هيستد أو حسن محمد حسن مختار وأوجيسنا ويسود عيان مر البا وهي يترك لنا كل أي هتجاب كذا يجسين وزارة أهم يكون تسر ما وزارة هي يعني وزارة مش غيرين لقد دراسة هي من قربة لكن كنت تجس هي أو منطقة ولا شغينا وياجا مركوا عيجنا أنت تبغى كله وهذا يترك لنا ويتريان ما عدنا وما إلا مركوا الحمد لله ويجور هيان رجال شغل واتهاي سيدات أركي دونتان وحن جعلها إن بدن وحابو إلهي قدرتي سواء لو عمر قاته بلسه هاتن waxaan rabaa inaan tuso walaalkay afka cuntada kama cuno isla mar ahaantaasina waxa la dilaaciyay ama la duleeliyay calooshiisa isla markaasina dhinaca caloosha ayaa wala inta caloosha gudbinta waxaan ku xiran rabay inaan ku dhaaf isbitaalada lacag dadku ma yeeshaan oo diin isbitaal liga leeyahay isbitaalka ma aha waxa waaye dad baa isbitaalka igeenay dadkii diin soo qaada lagu leeyahay lacag lagu leeyahay marka isbitaalka hadii waxaan ogaa isbitaal coptic $105 oo mataqaana oo laakiin yahay $105 waa $1 iyo wax laba kun oo kale Soomaali $1 oo kale waa lacag $1 habeenkii aan cabaar rafanayniba lacagtii markaan turnay isoo harday lagu malahana hesheen bal ka waran qof dhan oo $1 hadana markaan bixinay lacag dhan oo mataqaana lacag 3,000 4,000 ku dhawaad markaan bixin halka $1 ka dhinaa waa inaad bixiso rasiid soo goost markaas bixi kartaa hadda si joogtana waa lacag kale waa taan waxaan jeclaan lahaa ina calooshaada wax yar hadana tusi karto wadana calooshan halkana
baashan hadda meeshan macnaha markii gubayn ma aqaan waxbaa soo gaaray fistula qaybta hawada iyo qaybta cuntada dulal yara dhexdooda maray fistula waxa la dhahaa marka haddii candhuufta laqdaha taa waxay sababsan markay aadi qaab limonia marka si waxay noqonaysaa kolbaare oo kale si marka wax ay u galin inta lagu shiinaha ilaa laga daweeyo ilaa tan laga xaliyo marka waa kana inta cuntada lagu shubaa صح baashaas algilna saliidadas صح nigadaas waa loo geliyaa cuntada waa blended haddii yar adag tahayna waa lagu soo riixayaa haddii kalena biyahana waa lagu shubaa hadda waa ku tusi karaa wax yaroo biyaan ku shuba cabitaankan بس اوكي sidaas wax ku xabtaa هذا 10 إذا دوتي وشبنا عشرة halkaas aad ku shaqeysaa waa tahay aad ay uma santahay kuleyba Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalaha Soomaaliyeed iyo muslimka dhamaantood waa idin salaamayaa salaan kadib waxaa halkan ku xanuunsan walaalkay Roble Salaad oo loo yaqaan Cabdixakiin aniga waxaa la yiraahdaa Muuse Salaad Bucul ninkan oo muddo 2 sano ee bilooyin anigu xanuunsan magaalada Nairobi isbitaalka cudurka wuxuu qabaa la yiraahdaa kansarka markii soo waxaa laga keenay xamar halkaas oo maaragtay baraka ay macallin haddana waa xanuunsan yahay isbitaalkii adiga ilaa lacag wax diin la soo qaaday wax kale ilaa lacag 4 milyan hadda ku baxday waliina wax ka jooga ma ahan waa dareemi kartaan nin maalintii ilaa lacagta lagu daweynaya ay tahay ilaa $600 hadda waa awoodi weyne qolkan uu iska joogaa caloosha ayaa beeb wax looga siinayaa marka hadee hataa hooyadiisa oo anaga hooyadeena dhashay markay ninkan ogaatay inuu kansar qabo xoogoo dhaqaalihii wixii ay adkaadeen anaga dad ganacsi waxa saddex haysta ma aanan ahayn marka iyada nafteeda maskaxdeeda la galay Mandera ay joogtaa halkaas ayaa quraan lagu saaraa marka waxaan codsan lahaa walaalaha marka warqadii oo ninkan extreed iyo wax lagu saaray noo kuwan raajitadiisi waayaha marka waxaan codsan lahaa walaalaha muslimiinta oo islaamka wax la bixiro wax sadaqaysan rabo siday maaragtay carshiga alla maalinta qiyaam u harsadaan inay marka macaawino maaragtay tabarucaad noo sameeyaan cid marka maaragtay wax la bixi rabto muslimiinta inay maaragtay wax ugu kaalmeeyaan cid wax haysto Ilaahay wax siiyay intaasaan codsan lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku weydiinaa Muusow walaalkeen waxaan ognahay haatan inuu macnaha uuna haysan isbitaal lagu la tacaalo oo isbitaaladii lacag badan inta lagu yeeshay haddana uu banaanka uu ku soo dhacay waxaad ku haysaan waa qolkan aadka u yar waxaan ku weydiinayaa waxay tahay lacagaha lagu leeyahay waa imisa هذه العقل لا كل وقت كم $100 وحنا مرينا لكن مركي لو دقيقة 900 يو هذه 900 كنتم كنا $100 مع أو كي ماني ميلا صويها وتاي وحن كليتون كويتينا وحواي واد أركتها ما أنت موسى وحبها هي شليت وحوها بدبادية ومضيت سوسارة أرضي سلمر كاسين مستقبل ومضيت أيو ديارنا ومنهج كذا أو أمد الصومالي بحلقوا براي نين ديارنا وها بل سي إلها وحول با هاي وعافمات يولي عمر بهاي وحن كويتينا يا موسى حد ما جرتا وحلة تعالي ذا مدتني سوق الموضوع كلت مجرى والله بلادك واسك garan kartaa wixii horta qaraabo meelaha noo joogin oo haba yaraadeen wax way bixiyaan laakiin wixii markay cuslaadeen wixii anagu baa ku soo harnaa anagu baa ku dhibtoon hayn bilaadanka waa iska magaranaysaa isgarabsigu bay ku fiican yihiin sax marka xogaha waa in waad ka tanagan hadda ninkan ciyaal leeyahay xaas ayaa u degan hadda xamar ay ka imaaday maamada xanuunsan ay la joogtaa iyada nafteeda hadda maamada iyada barar ku dhaqdo oo magaranaysaa musqushigiis Mandera joogtaa laba gabdhood ay haysaa marka ilmahaas naftooda daryeel ay u baahan yihiin asagii waa kan daryeel u baahan yahay
ma shaqaysan karo waa ninkaas sariirtan haa ku jiifo marka waa anaga laftaan hadda ganacsi aan la sheegi karo maanta aan haynin male iska un kabarweysi oradan ku jirni marka waqtiga weyn marka dhibkaas jira marka wixii maaragtay muslimku inay wax la baxaan rabaan inay noo soo caawiyaan ilaahay dartiisa noo soo caawiyaan waxaan ku weydiinaa hadday dad rabaan inay wax soo diraan xaggee ku soo diri karaan والله كلي تليفون لبرنا لنا هي تليفون أساق اللي هي يمدا أديك اللي ده ها مدا أنا اللي هي يمدا أساق اللي هي كيلو صدر واحد بملح دملا واتهاي وحن كلا دتك وشيء دونا إن شاء الله شاشة دان صار دونا وحاجرة شركة سفاركم أكون أكفرتين قيبت هذا إمبيس هذا بيبيل ها بيبيل ها بيبيل كاجرة سفيان ها إن شاء الله وحي جوجا دلك كينيا دان بيبيل كاجرة هو استعمال كران هو استعمال إن شاء الله أنا كانوا أسوق الدندون بركاته ولا لي سوماليات أنا نفسها ليدها ويل كان ولا كنا صوب وقنمان تحنونسن مسلمين تميلوا بيجوجان Soomaali Maxamed waxaan ku codsanayaa walaalkeen rafaadsan oo tuubada caloosh wax laga siinayo u jeedin oo maxay ahayd istaal hata loo way istaal hata lacag lagu geey loo way oo qolkan lagu haayo qolkan waxa loogu haayaa qarash la'ay awgeed waa fahmaysiin maamada hooyadiisna maxay ahayd way xanuunsan tahay maskaxdeeda la yargalay wiilka ay shock ka qaaday marka cudur kansaraas qabaa lahay iyo qarashka marka loo way Abu Muuse oo u jeedin ilmo qaba shaqadiisa dhan wixii dhan wiilku ilaalinaya marka walaalay Soomaaliyeed inuu Ilaahay in gargaara inuu Ilaahay maalintii yawmal qiyaama arshi Ilaahay dad karsana Ilaahay in ku dara waxa baxsteen sadaqada wadii geeri furut Ilaahay in kiiga dhiga walaalay dhamaan waxaan ku codsanayaa wiilka walaalkeen inaad soo caawisiin soo garab istaagtiin ayaan ka codsanayaa walaalay Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa hadda wiilku wuxuu marayaa stage-kii labaad uu marayaa haddana waa u jeedin istaal lacag lagu geeyo wax walba waa loo laasan yahay qol iska jiifaa intuu walaalayaal oo stage 3 4 oo sii gaarin walaalkeena caawin aan u gurmina Soomaalinimo muslimnimo maanta waxa baxsataa biri ka hore walaalayaal sadaqada wadii geeri furta Allah in kiiga dhiga Allah in baakay Soomaali aad arkaysaan wax raashina oo u yaala malaha walaalkeen wax daawo waxa ka taala sharoobadaas kaliya aad aragtaan ma haysto wax isbitaal ah ma haysto wax dabiib ah waxa halkaas wax walba uga daran waxa waaye dabiib la'aanta saacadan waxay ahaan lahayd hadii uu macnaha uu walaalkiin caafimaad qabo inuu idinka wax nitaro ama nii gargaaro ama wax nila qabto waayo wuxuu wax bari jiray waa arday Soomaaliyeed wuxuu u diyaarinay manhaj Soomaaliyeed inuu soo baxo Soomaali ay leedahay isla markaasina ardayda Soomaaliyeed wax lagu baro balse maanta walaalkiin asaga garabkiina u baahan oo waad aragtaan sariir ay saaran ma haysto wax isbitaal ah ma haysto waayo gurigan iyo qolkan iyo halkan sariir aad aragtaan cuntaysan ogoolin wax daawo aysan ogoolin ayuu waliba muuqaalkiisa aad aragtaan oo sidaas ah ayuu walaalkiin wuxuu weydiisanahay inaad garab istaagtaan hadii aad tahay qof damiir leh qof Soomaalinimo ku jirto qof diin leh qof muxsin ah oo Ilaahay maalinta qiyaamo u shafaac qaada Ilaahay aan ka cabsano walaalkiin la soo gaara wax walba aad awoodaan maanta garabkiina u baahan yahay waxaan halkan soo dhigi doonaa intiina joogta dalka Kenya akoonkiisa embeesada qaybteeda Paypal-ka ayaan soo dhigi doonaa shaashada ayaan soo saari doonaa waxaan kaleeto oo shaashada soo saari doonaa walaalkiis Muuse Salaad Bucul oo asaga hay asagoo Cabdixakiin telefonka aad kala soo xiriiri kartaan labadaas lambar ayaan soo saari doonaa shaashada insha Allah si toos oo la soo xiriirtaan rajeynaya aadna la soo gaartaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Okay, fellow teachers, as we have seen before, the English language textbook comprises of segments.
lesson